magacaygu waa Cumar Mursal Saalax oo ka mid ah ardayda kulliyadda beeraha iyo xayawaanka ama xoolaha jaamacadda Nugaal marka waxaan halkan u nimi maanta in loo dhundulaado oo toddobar badan aan ku sameeyno bal meesha wax marayaan annagu casharadii sidaas aan u dhiganaa practice iyo xiboo kale waa isku wadnaa laakiin maanta waxaan rabnaa beeraha gobolka inaan wax ka ogaano halkan ka dambeysay waxa ka muuqda qayb ka mid ah beeraleyda gobolka oo iyagu beerahan ka shaqeeyo leh isla markaana waxyaalihii ay la kulmaan iyo dhibaatooyinka iyo dhan kasta caqabadaha ayaan siin bay noo sheegi doonaan annaguna xoogaa ku saabsan seedka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan sumaha oo kale ama pesticideska waxa loo yaqaano ama seed disease oo kale sumaha marka aad bal haddii aad heshaanba oo halkan gobolka aad ka heshaan ama soo gadataan waxa fiican inaad hadba mid kasta sida ay ugu habboon tahay isticmaalkeeda aad la sugtaan geedka sunta ku habboon oo waliba aqoon dheeraad ay u baahan tahay idinkoo waliba isku dayi doona waxyaalaha culturalka leeyahay ama dhaqanka oo dhirku daaweynta ah geed ku daaweyn oo aad idinku taqaaniin baan u malaynayaa dhirta iyada baa la isku daaweeyay xasharaadka qaar lagaga dilaa markaad inta soo dhaaftaan oo adii aad suntii ama geedkii cudurkii ku sii ballaadho iyadana waxaad u gudbi kartaan marxalado fara badan oo sumuhu ay kala leeyihiin suntu marka aad adigu isticmaalaysid marka hore qalab baa laynoo sheegay sida ayna bareen aqoonyahanadu in laga xidho wixii aad ka heli kartaan ka xidhataan ma aha dee adduunka meelaha qaar waxaa laga xidhaa suud bay leedahay ama drays dhammaystiran oo ilaatin iyo cirib cagihii laga xidho sankii iyo meelahan muhiimka ah dhigihii indhihii gacmihii muhiimiyan inaad heshaan barota gloveska yaryar oo ama gacan gashiga yaryar dhakhaatiirtu isticmaalaan sida wada taqaaniin qoraalka sunta ayaa noogu caqabada ugu weyn inta haysata wataa iyo caqabada labaad kale aan haystaa waxa weeyaan xagga dhulka nagu adag xagga beeritaanka beeraha dhulka adag dhammaan waan salaamayaa dhalinyarada iyo dadka beeraha ku taxalluqay ee beeraha soo saara gobolka haddii waxaan maanta idinku nimi siduu Cumar Mursal sheegay bal inaan xaaladda beeraha u korgalno iyo caqabadaha haysta beeraha soo wajahay dhawaan waxaan nimi anagoo ardaya waxaan nimi beeraha kormeer yar ku soo sameynay xogaayana waan ka soo helnay ama marka caqabadii haystay beeraha waanu soo helnaa marka hadda haddii aanu u sii gudagalno bal wixii markaasi bal xal noqon lahaa kulley xalku wuxuu yimaadaa marka ay bal dhibaatadii ay timaado baa sidee loo xaliyaa la dhahaa laakiin waxaa ka sii fiican in dhibaatada marka hore laga sii hortago ka hortaga wuxuu ka fiican yahay in wixii daawadiisii la helo daawada iska daaweynta sidaan ognahay laba caqabadood baad noo sheegteen oo aad noo haysta baad nagu tiraadeen labada caqabadood oo ah in beeraha inta badani ay sumihii cilad idinka haysato ama isticmaalkii sumaha uu dhib weyn idinka haysto qodobka labaad aad noo sheegteen wuxuu ahaa in problem idinka haysto seedkii markii wadamo kale laga keeno iyadoo la soo tijaabin intii la idin keeno hadhow marka aad dhulkii ku ridaan inaad ku hungowdaan oo wixii aad ka rabteen aad kala soo bixi weydaan kulli labada problem waanu eegnay ayaan dhawad beeraha waanu nimi kulli intii de karaanka yaga ah ama bal intii la talin iyo bal wax sheegisa waanu idin soo diyaarinay dhinaca sumaha hadii aan ku hormaro horta sumaha marka ugu horeysa waxaan inta badan aad beeraha u isticmaashaan waa pesticides waa chemical aad ku buufinaysaan beerihii chemicalkan aad beerta aad ku buufinaysaan khatar buu deegaanka u yahay khatar buu deegaanka u yahay naftiinu khatar u yahay xasharaadkii kale iyo xayawaankii kale ku noolaa meesha la manafacsanayay iyagana khatar buu yahay inta badan chemicalka waxa la isticmaalaa ama sunta chemicalka ee la soo iibinayo waxa la isticmaalaa last solution baa la dhahaa xalka ugu dambeeya ee la isticmaalo markaad wax kale oo beertii aad ku wadaweyso aad weydid ayaa sunta la isticmaalaa looma dhawaado waxa jira waxyaabo ka horeeyo oo la sameeyo ina biological control beertu adeegsatid qaab la yiraahdo in physical aad u adeegsatid waxyaabo cultural oo dhaqana inaad beertu adeegsatid marka waxyaabaha dhaqanka aad beerta u adeegsanaysid waxyaabo sumahan ka fiican baa loo oran karaa adigana dib aan ku soo gaarsiinayn deegaankiina aan dib soo gaarsiinayn xayawaanka ku noolaan aan dib soo gaarsiinayn hadda ayaan dhawad beeraha waanu soo marnay xanuun malabeeyo la dhaha haysta xanuunkani inta badan saliid buu caleenta ku reebaa caleenta kalarkeedii buu bedelayaa caleentina hodhow
way daadanaysaa inta badan geedka haddii caleenta laga soo weeraro oo xanuunkaasi noqdo xanuun caleenta ku dhacay wuxuu sameeyaa xanuunkaasi geedkaasi production-ka wuu ka yaraadaa oo geedka meesha ugu xun ee laga soo abaarayo waa caleenta marka xanuunka malabeeyaha sida noo sheegteen caleentu ku dhacaa waxyaabaha dhaqan ahaan aad ku daaweyn kartaan haddii aan idin sheegno waxa ka mid ah inaad hore u garanaysaana ma sheegi karo baashan la yiraahdo saabuunta ama saabuun marista baashan la yiraahdo suuqa lagu iibiyo ayaad soo iibinaysaan saabuuntaas biyaad ku daraysaan biyaha markii aad ku dartaan waad ku qasasaan biyihii markaad ku qastaan cadaan bay biyuhu isku bedelayaan biyuhu markii kalarkoodu isbedelo in yaroo dambasaad ugu daraysaan ka bacdina waxaad ku daraysaan weelka aad ku buufin lahaydeen baa biyihii ku shubaysaan biyihii saabuunta lahaa ka bacdi beerta ayaad ku buufinaysaan waxaad kaga buufinaysaan beerta inta ugu horeysa caleemahaad kaga buufinaysaan marka dambe jiridaad kaga buufinaysaan hodhow waadba ku waraabinaysaan bacradii waxa laga yaabaa maalmo kadib inuu xanuunkaasi meesha iskaga guro oo ka tago waa tijaabin kartaan waa hab dhaqan oo aan kharash badan u baahnayn waxyaabaha dhaqanka inta badan u fiican beerta waxa kamid ah in beerta aad digo oo kale waa taqaaniin baan maleynaa digo oo kale inta meesha qoraxdu ay ka soo dhacayso oo kale xilliga meesha aan leeyahay dabayshu ay ka soo dhacayso oo kale inta diga aad kaga shubtaan inaad digadii aad ku shidaan ka bacdina qiiqi uu beerta soo galo wixii xasharaad ahaa beerta markaa uu ka baxaya waxyaabo iska dhaqana weeye hadday beertu beer yar oo kooban tahay weeye waxa kale oo la sameeyaa inta badan waan arkaynay malmal beer lagu buufinayo uu fiican yahay waxyaabo aan dhibaato aan ku soo gaarsiinayn geedka mirimiriga oo kale caleentiisa gobolka aad uga baxaa isagan inta caleentiisa aad qastaan biyo ku qastaan waad ku buufin kartaan qaraadkaas xanuuno badan buu dawo ka yahay waxyaabahaas oo dhan ayaa idin kula talinayn horta sumuhu haddii waxaas oo dhan beerta ay wax ka tari waayeen oo aad waxaas oo dhan aad kala quusataan waxaad u imanaysaan inaad bal chemicalkii aad isticmaashaan chemicalka haddaba sidaa u isticmaalaysaan chemicalku wuu kala khatarsan yahay liist hazard baa la dhahaa ka ugu khatarta yar baad soo qaadanaysaan haddii aad sun khatar badan aad beerta markiiba aad ku buufisaan runtii beertiina baabaa bay ku noqonaysaa idinkiina khatar bay idin gelinaysaa hadda tusaale ahaan sunaan arkay oo beerta aad u isticmaashaan suntan bombarahe la yiraahdo methamyl baa magaceeda saxda la yiraahdaa laakiin idinku agranate baad u taqaanaan agranate waa sun aad khatar u ah beeraha looguma talagalin beeraha commercialka ee caalamka loogu talagalay in sunta lagu buufiyo beer substance farm oo qof quudkiisa kala soo baxaya ama beer yar oo kooban suntan oo kale looguma talagalin haddii lagu buufiyo beertii waxaan u maleeyaa beerta inta kaga baxaysa iska yar hadda waxaan u beeranaa wakaash garoos garanaa waa vegetable aan suuq geeyno 3 bilood haday u badato ku soo go'a haddii vegetable-kaas aan ku buufino methamylkan intuu kaga baxay rate-ka uu kaga baxaya badan moogtahay sunta waxa la eegaa inta geedka kaga baxayso waxa isticmaali kartaa sumo yar yar oo ka duwan markastana sunta kalarkeeda ayaa idin tusaya suntani khatarta ay leedahay kalar bay sun kasta leedahay suntu hadday inta badan red tahay casaan ay tahay waa sun khatar looma dhawaado waxa ugu fiican sunta cagaarka ah sunta huruuda tan buluuga ah sumahaas ugu fiican marka aad beerta sumahaas oo kale marka uu sunta ugu khatarta yar ee xanuunkana dilaysa ay teebaan adeegsan karaa markastana ogow suntu waxyeelo ayay leedahay waxa laga isticmaalaa qalab baa laga xidhaa sidoo Cumar sheegay qalabkaas markaad ka xidhataan inta badan maskaraati ama waxan waxa laga xidhaa bahalka celinaysa waayo sunta inta badan neefsashada laga qaataa oo qofka haduu nuugaday waa khatar bay ku sugnaanaya weelkii oo beerta idin dhex yaala ama weelkii aad wax ku cunayseen oo beerta yaala hadii aad ku buufisaan weelkii bay suntii galaysaa hadhowna khatar bay noqonaysaa ciyaalkii yar oo beerta ay ku jira hadaad ku buufisaan khatar bay noqonaysaa ciyaalkii yar khatar bay u noqonaysaa markasta aad sunta aad buufinaysid waad ka taxadaraysaa waa inaad dhar adag ka xidhataa oo suntaas aysan kuugu soo gudbin in dad badan baa u dhinta sumaha qaar oo marka beeraha ku buufada dad baa ayaan dhaweyd sumoobay beer ku sumoobay waa suntaas oo kala la oran karaa marka waxa sameeynaysan waxyaabo badan oo muhiim idin ah oo ka taxadara qaabka sunta loo isticmaalayo taasa muhiimayada qaabka sunta loo isticmaalayo waxaad ka dheehanaysaan level warqad yar oo ku dhigsan oo sunta ku moolgaraysan qaabka loo isticmaalayo inta suntan inta xanuuna ay ka dawatahay inta dalaga lagu buufiyo xiliyada la buufiyo shirkadii soo saartay khatarteeda hadii gargaar degdeg loo baahdo hadii suntaas qof ay ku dhacdo waxyaabahaas oo dhan baa ku qoran waxyaabihii idinkoon soo akhrisan hadii aad beerta inta ula timaadaan aad ku buufisaan wallahi khatar
talabaad aan idiin sheegayo markasta waxaad kala tashanaysaan baashan sunta ah waxaad kala tashan kartaan oo aad u fiican dadka aqoonta u leh ama dhakhaatiirta iyo dhakhtarada ama anagoo kale way nala soo mari kartaan way fiilkii waanu baranaa way idinka eegaynaa way idinka tijaabinaa kale xiriir fiican baanu yeelanay beeraha iyo anagu markasta waa idinka warhaynaa xaaladiina oo waanu xilliyada jimcaha iyo khamiista kale waan idin imanaynaa marka suntaas markasta waxaad kala tashanaysaan ciddii markaas aqoonta u lahayd idinkoonan habkii loo isticmaalayay aan ka dheregsanayna beerta kuma buufin kartaan khatar ayay idinku noqonaysaan waxyaabaha aan aad khatarta u ah aan rabo inaan idiin sheego muhiimka waxaa ka mid ah suntii inta 2 litir oo biyo wax laga yaabaa in sunta lagu qaso milimitir ilaa 2 milimitir oo suntii la rabaa in 2 litir oo biyo aad ku qastaan haddii biyihii aad ka badisaan meesha 3 litir oo biyo ah aad ku qastaan 2 milimitir oo suntii aad yareysaan oo biyihii aad ka badisaan hodhow markaad beerta aad ku buufisaan xanuunkii kaa dilimay annaga xanuunada beeraha ku yimaada ee khatarta waxaa noogu badan sida malabaysatada iyo cayayaanka yaryar oo duulo aanan waxaan iska daweynaan garanayn xagga sunta khatarta naga haysata waxaa noogu badan suntii oo aan garanaynin aanan iska akhri aqoonin oo markaan soo qaadana aan iskaga isticmaalo kabacdigeedna waxaan gashanno oo aan iskaga difaacno ma haysano marka qofka khatar bay gelisaa taasaa noogu sii daran aanan haysanin waxaan iskaga isticmaalo khatarta ugu weynee beeraha naga haysatay waa taa anigu maalmaha ka mida waxaan ku buufiyey caagad haddaan ku buufiyeyna markaan gurigii tegay ee aan cabaaro joogay bay suntii igu soo baxday ilaahay xaggiisa uma ka badbaaday waan dhiban gaadhay marka waxaan isla gaadhay leendhanaan taas ilaahay dawa iga dhigay marka sunta beeraha naga haysatay aad bay khatar u tahay waxa ka laga gashado oo golofyaal lama haysto waxa dee layidhaaho kaa difaaca oo suntaad xambaarayso iyo haantaad xambaaraysa kugu qubanaysaa marka sidaa darteed annagu aad bay suntu khatar noogu tahay wax weli naga caawiyana maanaan helin beeraha caqabadaha naga haystaa sumaha khatarta ee meel ka yimaadeen sumaha uu dhulka laga keenay khatarta kiimikada ah ee waxyeelo badan dadka iyo beeraha iyo xoolaha beeraha aan ku dhaqanay wax walba khatar way gelinaysaa waxa la waxaan ka gashanno oo de naloo sheegana saa u galana cidina ma tiraahdo waa suuqaas baan ka soo iibsanaa ka bacdina waan iskaga buufinaayo qiyaasna uma eegno waxana waa iskaga shubnaa ilaahay un baa iska kaayo badbaadiyo iska kaayo wasa de malabaystada dawada siirarka xitaa sumaysnaaya siirarka xitaa dhulkaas laga keenaa waxay yihiin de warka ma hayno sumay waa un siirarka u baan xitaa cilada iyo dawadaas mar wax iska saarnayba caqabadaha beeraha haysta aad u badan yihiin waxaa noogu daran qudaarta yaryar bisbaaska basasha yaanyada xanuuno yaroo geedka ku dhacaya caleentiisa geedka intaanu midhaha qaban marka dawooyinkii lagula tacaali lahaana aanaan garanayno magaalada laga helin ama aanaan aqoon lahayn si dawooyinka dee aqoontiisa lagu baadidoon lahaa aanaan garanayn magacaygu waa Salabaan Dahar Cali waxaan ahay arday ka mid ah kuliyadda beeraha ee jaamacadda Nugaal Agri-Veterinary halkan maanta aanu joogno waa beerihii Waqdiri runtii si wacan ay noo soo dhaweeyeen beeraha Waqdiri anaguna waan kala qayb qaadanay macnihii waxaan u soo diyaarinay waxa xagga cudurrada iyo waxyaalaha pesticideska ku dhaca oo hadda caqabadaha ugu badan ka haysta yihiin kuwa hadda ku dhaca beeraha waxaan kala soo diyaarinay macnihii xagga seed quality-ga marka eegno seedka horta soo qudhiisu waa qayb kamid ah macnihii beertan ee geedka markaad beeraysi marka horeysa waan iska tijaabisaa seedka ma caafimaad qaba mise waxaan u sanayaa seed quality waxa laga yaabaa markaad beeraysi 4 qaybood baa laga karayaa marka hore ma heli karayaa temperature ciidu ma ku habboon tahay biyuhu ma heli karayaa temperature ma heli karayaa marka waxyaalo badan baa caqabada ku iman kara oo kale oo problem ku ah kuwaas ay hadii si xun aad meel xun aad dhigto marka storage laga eegayo xilliga aad dhigi lahayd cayaan ba ku dhacayo inta badan waxa ku dhacay bahal daani la dhaho marka in karantiin la sameeyo loo baahan yahay si wacan loo daaweeyo oo xagga caafimaadka iyo weelka iyo wixii lagu ridi lahaa ama box kasta dad ku shubto weelka ku shubti waa inaad si taxaddar leh u sameeysaa waa inaad marka hore geedkii aad soo korisaa oo xanaan kaga baahan yahay wax walba oo nool xanaan u baahan marka waa inaad ku dhado haddana u lahayn cilmi kula caqabado badan baa ka hor imaanaya oo hadhow geedkii ka dilaya waqtigii uu ku dhali lahaa kala laga yaabaa inaad
kuwa hadda cayaan ku dhashay ninkan 4 bilood buu beerta soo fadhiyay oo geedkii de soo waraabinayay oo qarash kaga soo baxay maalintii u dambeysay damcay inuu midhii ka goosto ayuu waxa ku dhalanaya bahal dhan malabeeye bahalkii geedkii wuxuu noqonayaa wax saliid daaya aad moodi in saliid lagu yaaciyayba marka waxa kala haysata waqtigii inuu ku yaaciyo madow wax madow aanu garan weyna hal ilaahay wuxuu yahay geedkaas uu dhiman maayo waayo wuxuu la falgalay geedkii uu la falgalay marka si looga saaro waa adag tahay baan u malanayaa daawooyinka lagu shubayo waqtiyada waxa weeyaan hada 20 litir waxaad ku shubaysaa 3.5 baalo inta qiyaaska caadiga hadaad ka yareysinna geedkii di hadhow ma dilayo macnaheedu dhoormasi uu gelayaa waligii ma baxayo marka waxa jira kuwa kale oo caleenta intee galaan isku malaasaya haddii aad aragtid oo caleenta isku malaasay waa inaad laanta jartaa oo geedka meesha ka saartaa laantina dhigi meeshii meesha dhexdeedii wanad ka fogeysaado aad meel kale bannaan ku turtaa oo sida aad ama ku gubtaa waxyaalo badan oo iska jira way jira caqabadaha u badan waxa weeye dadka aqoon la'aan ba ka haysa marka anagu intii karaamkayga marba waxaan jeclaynaa beerahayga caawino waayo uu kii wax noo soo saaray subax walba qudaar loo baahan yahay marka laga maarmaa way nolosha bilaadanku iyo xadaaradu la soo maray dadku inta badan waxa ay beeraley bay ahaayeen marka waa loo baahan laga qayb qaato horumarka deegaanka qof walba oo halkan jooga waxa leenahay ka qayb qaato noloshiina halkan ku xiran tahay maalin kasta soo booqda laakiin saadar wadanka waxa beeraha qasaaraha ka soconaya laba cudur waay mid waa dirxi oo meel ka yimid la garan maayo seedka ku jiriya sunta ahayda la garan maayo wixii yaanyad ahayd laga faa'iidi jiray dhowr sano marba baan ku soo noqday cudurrada aad u badan yihiin horta cudurrada waxa weeye waa sida dambasayaha malabaysada caarada qalajisada xoorka aad u badan yihiin horta ma fahantiin laakiin horta waxa dhibaato ay naga haystaa ma suntiba waxaan u dhacday masiirkii baa dhacay waan kala garan weyna marka hore war ma garateen waxaan u baahanahay aqoon يعني هذا سيدا أرضينا كلا أرضي جامعة النجال وكل سيدا نوع أو نوقف على تصنت يعني نوشك يعني علمي جاي إنه كرديسو ساسو كلام حنا بعنا وإحنا جرب قبطة يعني سنت نوع هاي وإحنا نوشة مدة هلستا مدة دلاجة مدة يعني عند وقف يعني نوقف يجي هذا عادي هذا هرت حنون علنا يا أرضي ذكر هذا سيدا محمد وكله سلبان وكله ولشة بدنا عاد هرت جمال علنا وين عاويان وحوي وأب نوشة كمان نوشة الرحان واحد دلاء warma garateen saasoo kale waxaan u baahnaa wax na siiyo casharada talooyinka iyo naga jahal bixiyo